wasiir ku-xigeenka wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye Weheliyaan maayir ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa waxa ay maanta kormeer ku soo sameeyeen wadooyin casri ah oo ay dawladda hoose ka hirgelisay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa isla markaana dhawaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu amar ku bixiyay in la dhiso wadooyinkaasi. Cabdicasiis Maxamed Xaashi maayir ku-xigeenka ahna kusimaha maayirka iyo waliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda umuraha gudaha Maxamed Muuse Diiriye ayaa iyagu halkaasi ka hadlay. maanta waxaan ku jirnaa wali kormeerkii wadada 2 kiiloomitir oo horeeyaan u dhignay waxaan u dhigi doonaa wali ilaa Maxamed Moogaafkii la galaysaa wasiir waxaan doonayaa inaan dadka la hadlo waxaan leeyahay dadka guriyaha ay soo gaadhayso waxaan ka codsanayaa inuu guri waliba wadada oo ku soo jeedaaba marmarkiisii wadaniga ahaa uu dhigto si aynaan ciidba u arago aynu la dagaalanno ciidda wadooyinkan la joojin maayo way soconayaan ilaa Maxamed Mooga wadada la kala joojin maayo wadadana waa 6 kiiloomitir iyo badh. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dawladda hoose ee caasimada oo olole xoog leh horena u shaqeysay haddana doonaysa inay shaqeyso waa aragtaan waa 5 kiiloomitir baa tiri tan waa 6 kiiloomitir iyo badh waxa kale oo jirta tiijigayna dadka wadadan oo 6 kiiloomitir iyo badh ayaa halkan waad arkaysaa way dhameystiran tahay 2 kiiloomitir horeeya dhamaaday 2 kiiloomitir oo horeey way dhamaadeen intii kalena waan sii wadaynaa waxaan dadweynaha reer Soomaaliland u sheegayaa dhamaanba wadooyinka waan wadaynaa joojin mayno way soconayaan haddii alla yiraahdo haday tahay Hargeysa haday gobolada kala tahayba dalka waxaanu doonaynaa inaan nuuro haddii alla yiraahdo waxaan ka codsanayaa dadweynaha inay ka qayb qaataan wadooyinka kow halka imka aynu joogno goobta aynu joogno inaan kamaradu ku qaban doonaa waxaanu doonaynaa inaan biyo mareenkii u sameeyno waayo wadooyinku way dhimanayaan haddii aan biyo mareen loo sameeyo dadweynuhu inay dhagaxaanta ka guraan hagaajaan marmarka soo dhigaan oo ku soo dhaweeyaan oo xidhanto oo aan ciid iyo board midna la arag haddii kale wadadaasi berritoola sidii shalay un bay noqonaysaa aynu raandhiiska wadooyinkeena ilaalino aynu raandhiiska waxqabadkeena ilaalino. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.